24 saac la soo dhaafay markii laga yimaado goobaha halista ah ee ay Israa'iil iyo Iiraan iska bartilmaameedsadeen waxa aad u sii kordhaya hanjabaadaha iyo suuragalnimada la xiriira in weerar dhanka dhulka ah Mareykanka uu qorsheynayo. Iiraan dhankeeda ay diyaarisay weerar ama jawaab aad u culus. waxaad moodaa hanjabaadaha la xiriira in weerar lala yaabo ay dowladda Iiraan ay qaadaysay aad u xogeystay 12 saac la soo dhaafay. maxaa la qoray? sidee wax u socdaan? maxaa Iiraan ku qasbi karaya hanjabaadahan inay soo saarto? waana maxay talaabooyinka in tusaya in wax un ay socdaan ilaa jimcaha maxaa dhici kara? aan kula wadaago marka hore hanjabaada dowladda Iiraan intaana la eegin ilaa iyo 6 arrin oo in tusinaysa Mareykanka inuu u diyaar garoobayo howlgal culus. watan koowaad 24 saac la soo dhaafay waxa la diiwaan geliyay diyaaradaha xamuulka qaada ee Mareykanka ama ciidamada ay isticmaalaan ee C-17 loo yaqaano in si aan caadi ahayn ee u soo galeen gobolka Bariga Dhexe. waxa la sheegay in ka badan 36 saldhig oo Mareykanka u leeyahay in diyaaradahan ay ka degeen. waxaana goobaha lagala socdo duulimaadyada diyaaradaha ee flight radarka loo yaqaan ay muujinayaan in inta ugu badan diyaaradahani oo logistic iyo qalab kala wada iyo ciidan iyo agab militariba inay ka soo degeen saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay Bariga Dhexe, si gaar ahaaneed saldhigyada Khaliijka. arrinta labaad ee tusinaysa dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn in Mareykanka uu wada waxa qayb ka ah waxa barta Instagram-ka lagu soo daabacay sawir muujinaya casho sharafeedka loo sameeyo ciidamada Mareykanka. waa casho sharafeedka dhanka dhaqanka oo ciidanka Mareykanka loo sameeyo marka ay doonayaan howlgal military inay aadaan. askari kamid ah marka ciidankii casho sharafeedka loo sameeyay aabihii ayaa barta Instagram ka soo dhigay sawirkan. dood badan ayaa ka dhalatay waxaana dadka qaarkii ay yiraahdeen waxba sarag leh. arrinta saddexaad, ciidamada dowladda UK iyo kuwa dowladda Faransiiska oo la sheegay in arrimahan qayb ay ka yihiin suuragalna ay tahay Mareykanka inay caawinayaan ayaa saacadii la soo dhaafay soo gaaray badda Mediterranean-ka iyo badda loo yaqaan Arabian Sea. sidaas oo kale Mareykanka wuxuu soo diray maraakiib kale oo dagaal, inkastoo qaar ka mid ah maraakiibtiisa ay howlgalka ay ka baxeen haddana kuwa kale ayaa la soo dhaqaajiyay. arrinta afraad ee tusinaysa waxay tahay Ruushka wuxuu saacado ka hor soo saaray digniin oo uu ku leeyahay jasiiradda Qaraj haddii la weeraro xaaladda way ka sii dari doontaa. waxaana su'aal uu geliyay joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Bariga Dhexe inay nabad doonayaan inay horseedaan ama inay khatar ay ku yihiin dalalka gobolka. arrinta afraad ee tusinaysa waxay tahay dowladda Iiraan waxay 12 saac gudahood ay soo saartay 2 hanjabaad oo kala culus. mid waxay ku sheegeen haddii dowladda Iiraan jasiiradda Qaraj laga weeraro inay howlgal surprise yacni ka yaabiyo caalamka ay qaadi doonaan oo waxay si toos ah u sheegeen in Baabul Mandab ay xiri doonaan. sidoo kale falanqeeyo u dhashay dalka Iiraan ayaa waxa la weydiiyay su'aal ah suuragal ma tahay ciidamada Mareykanka inay howlgal dhanka dhulka ay qaadaan. isagana waxaa muuqaalkiisa laga daayay telefishinka qaranka ee dowladda Iiraan waxaana uu yiri annagana weerar kale oo cajiib ayaan qaadi doonaa waxaana la wareegi doonaa Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Bahrain. waxa su'aal la iska weydiiyay hanjabaadan marka dhammaan 6daasi arrin marka waxayna tusinayaan Mareykanka inuu wado diyaar garow aan caadi ahayn isagoo doonaya in weerar dhanka dhulka uu qaado ma jasiiradda Qaraj ma xarumaha tamarta nuclear-ka ee dowladda Iiraan. marka taa laga yimaado dhammaan warbaahintii Mareykanka waxay si isku mid ah u qorayaan iyo kuwa kale ee reer galbeedka in Mareykanka uu soo dhaqaajiyay ciidamadiisa Mariniska ama ciidanka badda ee sida gaarka u tababaran iyo guutooyin kale oo ciidamada Mareykanka kamid ah. waxaana la sheegay dhamaantood in loo soo daabulay gobolka Bariga Dhexe lana doonayo in la geeyo meel u dhow xuduudaha dowladda Iiraan. wararku marka waxay tilmaamayaan Mareykanka inuu doonayo duulaan waqtigiisa xadidan yahay in la qaado kaasoo 3 ujeedo laga leeyahay. watan koowaade in la qabsado jasiiradda Qaraj lagu magacaabo maadaama 90% Iiraan shidaalka ay ka dhoofiso. watan labaad ee suuragalnimada in Mareykanka uu doonayo inuu Isfahan iyo Natanz iyo xarunta kale ee Fardow lagu magacaabo in weerar lagu qaado oo halkaasi lagala soo baxo uraniumti dowladda Iiraan ay bacrimisay oo ilaa 400 gram gaari karaya iyo arrinta ku saabsan marinka Hormuz. 3daasi ujeedo ayaa ka dambaysa dhaqdhaqaaqa aan caadiga ahayn ee Mareykanka uu sameeyo saacadii la soo dhaafay waana suuragal 6,000 ilaa 9,000 oo askari inay ka qayb galaan howlgalka. Iiraan waxa soo baxaya inay diyaarisay in ka badan 15,000 oo askari iyadoo oo doonaysa inay ka hortagaan suuragalnimada howlgalkaasi ay ciidamada Mareykanka ay fulinayaan. 15,000 kaliya waxa loogu talagalay inay howlgalkaas ay ka hortagaan oo ay fashiliyaan qorshaha Mareykanka. waxa la isweydiiyay marka hanjabaadaha tirada badan ee dowladda Iiraan ka soo yeeraya maxaa ka dhaboobi kara maxaanan ka dhaboobi karin. suuragal ma tahay inay Imaaraadka iyo Bahrain ay la wareegto mise waxa u sahlan inay Xuutiyiinta ay ka soo kacaan hurdada oo ay dagaalka ay ku soo biraan iyagana Baabul Mandab ay xiraan.
واتن كواده maxay Iran hanjabaadeeda Bahrain iyo Imaaraadka Carabta ugu dooratay آمادگی 100% دارن در صورتی که خطایی رو آمریکایی‌ها انجام بدن در منطقه خط ساحلی و رفتار ساحلی برای گرفتن ساحل بحرین و امارات رو حتما اجرا بکنن sidaan ognahay Bahrain iyo Imaaraadka Carabta waa dalal aad ugu dhow dalka Iran oo xitaa Imaaraadka waa tii jasiirada badan ay isku hayeen sanadihii ugu dambeeyay Iran waxa lagu tilmaamaa dalka 16aad ee ugu awoodda badan dhanka ciidanka Imaaraadka Carabtana waa dalka 52aad ee ugu awoodda badan ciidamada taabadalkeeda Imaaraadka Carabta awoodiisa difaacaad ay u sareysaa oo sanadihii ugu dambeeyay hub badan ayay iibsanayeen ciidamo Amerikaan ayaa ku sugan halkaas nidaam difaaciye badan ayaa yaala suuragal ma tahay mise waxay ku xiran tahay awoodda ciidan ee dawladda Iran si gaar ahaaneed waxay u baahan doontaa awood ciidan oo aan caadi ahayn waxay u baahan doontaa awood dhanka badda ah waxay u baahan doontaa ciidan aad u tiro badan oo dhanka logistikada ama wax walba ka dhisan sidoo kalena Bahrain sidaas isay la mid ah laakiin in Imaaraadka Carabta uu labadan dal tusaale u soo qaato waxa la sheegay inay ka dhigan tahay kaar cadaadis oo aad u xoogan oo Mareykanka doonaya mar kale in lagu la gorgortamo taas oo ka dhigan يعني halka aad ku dhigtaan meel ka culus ama lamida ayaan anaga ku dhigi doonaa dagaalka adag ee kala dhaxeeya Imaaraadka miye tusaale arintan ugu soo qaateen mise waxay ka warhayaan shirkadaha aadka u badan ee Mareykanka laga leeyahay ee maalgelinta xooggan ku sameynaya Imaaraadka Carabta iyagoo doonaya inay amni darro ka dhigaan si shirkadahaasi dib ay ugu gortaan dhaqaalaha Imaaraadka Carabtana hoos u dhac weyn uu ku yimaado dawladahan ilaa iminka wax war ma aanay soo saarin sidoo kalena kama jawaabin hanjabaada ay warbaahinta sida weyn ay u daabacayso Iran sidaas oo kale mas'uuliyiinta si toos ah uma aysan hadlin laakiin wakaalada wararka ee Tasnim News Agency waxay baahisay Babul Mandab iyo weerar lala yaabo in Iran ay ku jawaabi doonto hadii weerar ay kala kulanto dhanka iyo dawladda Mareykanka maxay kula taadiga qaybta soo aragtidaada ku reeb like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada wad mahadsan tahay